السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن خيارتنا داوانيساي idilkiinba meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyadeena Nadaara Show. maanta waa maalinimo khamiis ah, taariikhduna waa 29 Juun sanadka 2023. barnaamijkan waa kii labaad ee maanta aan idiin soo gudbinayno. haddaba iyadoo barnaamijkan kii ka horreeyay saacado ka hor aan soo geliyay, maanta oo khamiis aan kaga hadlay mar kale Sweden oo gubtay kitaabka Quraanka Kariimka ah, iyo sidoo kale Turkiga oo digniin soo saaray, iyo madaxweyne Putin oo sheegay inay arrintaa qalad weyn tahay. haddaba arrimahaas oo faahfaahsan barnaamijkeennii hore ayaad ka daawan kartaa. haddaba barnaamijkeenna maxaynu ku eegaynaa? barnaamijka waxaan ku eegaynaa dowladda Suudaan ee militariga hogaamiyahooda General Burhan ayaa u muuqda iminka inuu isu dhiibay Erdogan. wuxuu yiri Erdoganow, nimankan shaqo ka qabo, waa shakisanahay Faransiis macalinka weyn wax oo dhan ninkan inay gadaal uga daaban yihiin Ethiopia wax kasta, marka wadankan inuu baaba'o oo wadankan islaamka iyo bal inaa wax ka qabato adaa odagii islaamka ah. iyo Erdogan oo shalay telefoon kusoo wacay wixii ay ku wada hadleen iyo waxa dhici doona ayaan sheeko cajiiba idinkaga hayaa. qaybta barnaamijkan arrinta ayaan ku faahfaahinayaa. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Suudaan, South Sudan, Tanzania iyo Turki. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. waa tahay kulanti wanaagsan mar kale khiyaartana daawanaysa ay kusoo dhawaada barnaamijkeenii labaad maanta oo khamiis ah. haddaba barnaamijkan waxaynu ku falanqaynaynaa xaaladda wadanka Suudaan. sida aad la socotaan in badan oo barnaamijyadeeda ku xiranna ay la socdaan, barnaamij ka mid ah barnaamijyada aan kaga hadlayay Suudaan midkood ayaa waxaan kusoo qaatay toddobaadkii hore in ciidamo Faransiis ah oo markaa xuduudda wadanka Chad in lagu qabtay, iyagoo markaa hub iyo waxyaabo kale looga shakiyay inay geynayeen dhinaca garabka ninka lagu magacaabo Hamiti ee ciidanka dacmu sariic la leeyahay ee kasoo horjeeda dowladda wadanka Suudaan. haddaba muddadaas waxaan sheegay halkan idinkaga sheegay in qaar ka mid ah madaxda Suudaan ay telefoonna u dirsadeen Erdogan iyo dowladdiisa, iyagoo kaalmo weydiistay ugana sheegay wixii ka dhacay Liibiya oo kale in lala damacsan yahay dowladda Suudaan ee militariga hogaamiyo in meesha looga saaro si markaa ay usoo taageeraan Faransiiska iyo qolooyin kale kooxda mucaaradka ee jabhadda dacmu sariic. haddaba siday tahay arrintu ha noqoto, marka hadda waxaa la leeyahay shalay oo ciid ahayd Erdogan baa soo hadlay. nimankan codsiya dirsadeen Faransiis iyo waxyaabo kale iyo Ethiopia iyo qashin baa nimankan gadaal uga daaban, iyagoo dana gaara leh inay dahabkii wadanka Suudaan dhacaan, wax walba dhacaan ayay rabaan, wadanka inay burburiyaan. marka dee xalkeena la yidhi odagii amiirul mu'miniinkii adiga ah shalay marka ayuu telefoon kusoo dhuftay aidituso Al Jazeera oo arrintan ka hadlaysa. waa tahay waxay leedahay marka Al Jazeera General Burhanka hogaamiye Suudaan wuxuu sheegay in Erdogan uu ka aqbalayo wax kasta oo tallaabo ah oo Turkiga uu ku joojinayo dagaalkaas. ma arkaysaa macnaha ninkan telefoon ay iskula hadleen ciidii horta looga hambaliyay. Jazeera waxay leedahay waxaan kaaga hambaliyeenayaa Burhanow adiga iyo shacabka Suudaan ee walaalaha nahay ee muslimiinta ah munaasabada Ciidul Adha. midda labaad waxaan kuu sheegayaa inaan aada uga xumahay ciidii labaad in aad dhibaatadan ku jirtaan. macnaha Ciidul Fitrigi iyo Ciidul Adha ay ku jiraan dhibka. ciidii labaad marka inay dadku si fiican aysan u ciidin, guryahooda ka qaxeen, aad baan uga xumahay. dadka muslimiinta ay dhibka la kulmay marka waa ka xumahay. marka wuxuu leeyahay Erdogan marka sidaa ogtihiin wadankaas diblomaasiyiintii oo dhan way ka carareen.
dagaalaa socdaa la yidhi dadkii oo dhan dowladihii waaweynaa dhan diblomaasiyiintooda inta badan way kala baxeen waxooda waa ka qaateen laakiin Erdogan wuxuu leeyahay ma idin faarujinayno walaalahayna aad tihiin dad muslimiin aad tihiin dhib baa idin gaaray ma idin faarujinayno laakiin kuwa dhibaatada ka dambeeya baan idinkala shaqayn doonaa inaad meel saartaan haddaba Jazeera marka waxay soo xiganaysaa hadalka Erdogan uu shalay kula hadlay General Burhanka Sudan waa tahay sida arkaysaan Jazeera waxay leedahay Erdogan wuxuu ballan qaaday inuu sii wadi doono shaqada safaaradda Khartoum iyo howlaha ay halka ka qabanayaan diblomaasiyiintooda labada safaaradood inay shaqaynayaan mid Turkiga dadkii Sudan ka kala carreen oo dhan inay safaaradda Turkiga shaqaynayso marka adeegyadeedana waxaa loo wareejiyay magaalada la yiraahdo Port Sudan inkastoo Khartoum dagaalo ay ka socdaan laakiin wixii shaqaa oo dhan diblomaasiyiintii wixii oo dhan halkaaba ay hawshu ka soconaysaa oo leeyahay marnaba idinkama tagayno ma idin faarujinayno walaalahaynatiin Erdogan wuxuu kaloo leeyahay xukuumadda Turkiga waxay sii wadaysaa dadaalkeeda ku wajahan gargaarka bini'aadanimo ee la siinayo shacbiga Sudan wuxuu sidoo kale si gaar ah u tilmaamay Erdogan isbitaal weyn oo Turkigu ay ka dhiseen waddanka Sudan oo deegaanka la yiraahdo Niyala kaasoo sheegay in khadamaadkiisa ama adeegyadiisa caafimaadka uu bixin doono ay hawshiisuna siday tahay u socon doonto daawooyin badanna ay geyn doonaan dowladda Sudanna ay maartay si buuxda u taageerayaan oo garab istaagayaan marka waa kaas Erdogan marka wuxuu leeyahay annagu marnaba ma idin faarujinayno idinkama tagayno walaalahayaa tihiin dad dhibaato soo gaartaa tihiin sida Mareykan iyo reer galbeed iyo waxa kan iyo kulli ay diblomaasiyiintooda uga qaateen uga carareen annaga ma idin faarujinayno taas bedelkeed safaaraddeenu way shaqayn magaaladii ay dagaalku ka socdaan ka qaadnay magaalo kalaan geynay bas Port Sudan la yiraahdo oo maaragtay dekada ah meeshaas ay ku shaqaynaysaa safaaradda midda labaad annaga waxaan taageersanahay dowladda Sudan ninkan gabgabta badan ee Xamiiti la leeyahay ee Imaaraadku gadaal uga daaban yahay ee Faransiis gadaal uga daaban yahay oo cid kasta gadaal uga daaban tahay waa eedbinaynaa u leeyahay dowladda horta taageersanahay macnaheedu waxa waaye wax walba khadamaad ah adeegyo ah dowladdu u baahan tahay waa siinaynaa gargaarka bini'aadanimada waa lagu gambanaa sidiisaba hubaa ku siinaa kana ku siinaa ma la dhaho siyaasadda diplomatic ma khubaradu waxay leeyihiin waxaasan keena lama dhaho laakiin adeegyada wax walbay dowladdu u baahan tahay waa qabanaynaa haddii la yidhaahdo wax walbaa ku jira marka maxaa la soo qaadanaa adeegyada ku saabsan gargaarka bini'aadanimo ee shacabku u baahan yihiin hadday tahay raashinka cunnada daawooyinka midda kale isbitaal weyn oo waxaa jira Turkidu ay ku leeyihiin deegaanka Niyala isbitaalkaas marka adeegyo caafimaad uu sameyn jiray weligiis isbitaalkii marka hadda waxa uu leeyahay Erdogan warbixintiisa ku jirtay isbitaalkaas wuu sii shaqayn doonaa shacabka inta ay baahi u qabaan dhakhaatiirta Turkidu ma tagi doonto iyo kuwa Suudaaniyiinta meesha ka shaqeeya way idinla joogayaan daawooyin aan geynaynaa waa idin gacan qabanaynaa waxaan nahay garabkiina taaganaa waa ka xunnahay wixii dhibaato ah ee idinku dhacay waayahay marka intaas markay sheekadu dhex martay marka Jazeera waxay leedahay Burhan iyo Erdogan sheekadaasaa dhex martay telefoonkaasaa la iskula hadlay Erdogan marka hadalkii dhamaystay marka oo hawshii dhamaatay ninkii Burhan ahaa afku furtay wuxuu yiri General Burhan dhankiisa wuxuu sheegay leedahay Al Jazeera inuu aad ugu mahad celinayo ihtimaamka uu sida gaarka ah u siinayo madaxweynaha Turkiga xaaladda waddanka Sudan macnaha xaaladda waddanka Sudan inuu si gaar ah ula socdo ayuu uga mahad celinayaa wuxuu sidoo kale sheegayaa arrinta ku saabsan qolyaha mucaaradka ah ee xukuumadda kasoo horjeeda inay dhowr jeer iyagu ka hor yimaadeen
wax walba oo dadaala oo nabadeed. marka shacabka turkigana wuxuu uga mahad celiyey gargaarka ay mar walba la garab taagan yihiin bini-aadamnimo shacbiga suudaan iyadoo dowladda iyo shacabka turkiga uu mahad celinayo. burhaan marka hadalka ugu muhiimsan markii intaas loo sheegay muxuu leeyahay burhaan marka wuxuu leeyahay suudaan waxay ogolaanaysaa u fiirso tallaabo kasta oo turkiga uu ku joojinayo dagaalka si nabad looga dhaliyo waddanka suudaan. fiiri hadalkaas marka waa hadal weyn. suudaan waxay ogolaanaysaa wax walba oo turkigu uu u keeno oo si xaaladan loo dhameeyo. suudaan marka nimanka militariga waxbay arkeen dhowr jeer shirara lagu qabtay sacuudiga macalinka weyn ee sacuudiga isla waday imaaraadka meel kale ku daaban yahay wixii oo dhan marka ninkan burhaana wuxuu arkay in aan la rabin waddankan suudaan inay nabad ka dhalato. ninkan ay ishayaanna mar walba oo xabad joojin lagu dhawaaqo wuu jabiyaa mana la hadlaan macalinka weyn iyo ay yidhaahdaan waxba ma ku sameeyaan. faransiis xuduudaba lagu qabtay isagoo soo socda niman Wagner la yiraahdo oo caloosho u shaqaystayaal ruush ah iyaguna dahabkan iyo meesha laga qodayo waxa kane u soo socdaan jamhuuriyadda Afrikada dhexe iyo Mali iyo ku sugan yihiin iyo General Haftarka Liibiya iyo waxaas la joogaan iyaguna halkan inay soo galaan rabaan. marka militarigii suudaan markuu arkay sheekadii turkiga uu naga soo gaaray wax allaale waxa sheekadan ku joojinaysa diyaara una isdhiiba albaabka ka baxa hadaan tara waa ka baxayna. laakiin nimankan waddanka inay burburiyaan kaala ka qabo Erdogan kaala ka qabo. marka xaalku halkaas uu maraa wixii ku soo kordha warara maalmaha soo socda iyo tallaabooyinka la filayo turkiga inuu qaado waan idila socodsiin doonaa haddii Allah uu dili ka raali noqdo. dawadayaal barnaamijkeena wuxuu ahaa kii labaad ee maanta oo khamiis aan idiin soo gudbinayno iyadoo barnaamijkan kii ku horeeyay oo aad u xiiso badanna aad kala socon doontaan YouTube-keena iyo Facebook-keena barnaamijkaana aad ka heli karto. haddaba intaadan ka bixin barnaamijka fadlan like saar subscribe na saar haddaad ku cusub tahay YouTube-ka Facebook-kana haddaad nagala socotid share garee follow na samee. intaan mar kale barnaamijyadeena soo socda ku kulmi doonaa haddii alla idmo sidaa ay nabadgelyo.